السلام عليكم soo dhawaada daawadayaal meel kasta ku sugantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida wararka ugu weyn ee adduunka ka dhacay ama ilaa hadda taagan waxa kamid ah xabad joojinta qasa iyo qorshaha sideenta maxaabiista warbaahin kala duwan ayaa sheegtay in Israa'iil iyo Xamaas ay isku raaceen wajiga koowaad ee qorshaha nabadeed sida uu shaaca ka qaaday madaxweyne Donald Trump wajiga hore ayaa la filayaa inuu ku jiro xabad joojin iyo sideenta qaar ama dhammaan maxaabiista ay labada dhinac kala haystaan wadahadallada xabad joojinta ayaa wali socda iyadoo la sheegay in la isweydaarsaday liisaska maxaabiista xaaladda magaalada qasa ayaa wali lagu tilmaamay inay tahay mid aad u daran isla markaana halka ay ka jirto xaalad nololeed oo bini'aadamtinimo oo aad looga naxo colaadda iyo dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa wali socda iyagoo falanqayaashu ku tilmaamay oo la argaxiso waxaan maalmihii ugu dambeysay la arkayay weerar ay labada dhinac isku qaadeen oo saameyn halis ah yeeshay waddanka Myanmar ama Burma waxaa la soo sheegaya in militariga ay weerar diyaaradeed ku qaadeen tuulo halkaas ay ku dileen 24 qof oo ay ku jiraan caruur waddanka Ecuador madaxweynaha waddankaas ayaa baabuurtiisa waxa weerar ku qaaday dad dibadbaxayaal ah inkastoo madaxweynuhu aanu wixii la soo gaarin oo ka samata baxay golaha sanadka ee Mareykanka ayaa diiday sharci loogu talagalay in lagu xakameeyo awoodda madaxweyne Trump uu ciidamada u isticmaali karo karteelada daroogada maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa ku heshay nin hore uga tirsanaa oo mas'uul ahaa maleeshiyada Suudaan dambiye uu ka galay gobolka Darfur ee waddanka Suudaan abaalmarinta Nobel ee kiimikada ee sanadka 2025 ayaa waxaa la siiyay 3 saynisyahan oo ku saabsan shaqadooda horudhaca ah ee la xidhiidha qaab dhismeedka organikada birta MOFS taasoo laga yaabo inay muhiim u noqoto qabashada carbon dioxide iyo bixinta biyo ee deegaanada lama deegaanka ah Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Modi ayaa xadhiga ka jaray wajiga koowaad ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Navi Mumbai oo ah mashruuc kaaba dhaqaale warbixinada ayaa muujinaya burburka joogtada ah ee kaynta Amazon iyadoo macdanta dahabka ee sharci darrada ah ay xaaqday 140,000 oo hektar oo kamid ah Amazonka Peru dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah boqolaal dalxiisayaal ah ayaa laga badbaadiyay buurta Everest kadib markii uu baraf ku habsaday buurta Everest waa buurta ugu sarreysa dunida ee ka sarreysa heerka badda waxayna ku taallaa buuraleyda Himalaya qaybteeda Mahalangur Himal waana xadka Shiinaha iyo Nepal dhererkeeda waxa sanadkii 2020 si rasmi ah u cabiray Shiinaha iyo Nepal waxaana la xaqiijiyay inuu dhererkeedu dhan yahay 8,846 mitir waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii xogta dunida tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh